annagoo aan ogayn miyuu bilowday dagaalkii saddexaad ee adduunku waa tabin aannu ciwaankaas u bixinnay kuna faaqidi doona calaamado muujinaya barbilowga iskudhaca quwadaha waaweyn ee dunida haddii ay dhacdo inuu dillaaca dagaalkii saddexaad ee adduunka shiinuhu waxa uu ka faa'iidaysan doonaa jasiiradaha istaraatijiga ah ee u dhow saldhigyadiisa ku yaalla badda bariga shiinaha iyo ku xidhnaantooda goobaha militari ee jasiiradaha uu horey u qabsaday sidaa daraaddeed dareenka guud waxa uu yahay in dagaalka saddexaad ee adduunku uu noqon doono mid ka duwan kana waxyeello badan labadii dagaal ee ka hordheeyey tani waa ifafaalo muuqda tan iyo markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee adduunku 1945kii waxaa mar walba taagneed hadalhaynta ah goormuu dhici doonaa dagaalkii saddexaad ee dunidu yaa ishardin doonaa muxuu salka ku hayn doonaa dagaalku muxuuse kaga duwanaan doonaa kuwii ka horreeyey saamayn intee leeg ayuu geysan doonaa macquul ma tahay inuu isku beddelo dagaal nukleer oo aan waxba laysku reeban su'aalahaas iyo kuwo kale oo xooggan ayaa taagnaa tan iyo 1945kii waxaana la og yahay xilligii suufiyeedka gaar ahaanna muddadii u dhaxaysay 55 ilaa iyo 1990kii xilligaasoo uu socday dagaalkii qaboobaa in la dhihi karo waa xilligii ugu dhoweyd inuu dhaco dagaalkii saddexaad ee dunidu balse dagaalkaasi sida magaciisaba ka muuqata waa mid hoose oo qabow intiisa badanna qaab diblomaasiyadeed ayuu ku dhacay iyo loolan xagga hawada ah burburkii suufiyeedkuna waxa ay keentay in quwaddii adduunku ay ku ururtay washington iyo xulafadeeda gaashaanbuurta neto sannadihii u dambeeyey waxaa saaxadda si awood ku dheehan tahay iyo qaaban hore loo ala ku soo galay shiinaha oo awood dheeraahda la soo baxday iyadoo weliba noqotay dalka saddexaad ee ugu quwadda weyn adduunka waxa ayna kaalinta labaad u jiraan wax yar sikimo hadda waa libriqsiyo shiinaha ayaana dagaal dhanka dhaqaalaha waxa ay la galeen maraykanka iyadoo dagaalkani uu xoogaystay muddadii uu xilka maraykanka hayay Donald Trump waxa ay khubarada u dhuundaloola arrimahan hoosta ka xariiqeen in dagaalkaasi uu weli socdo shiinuhuna guul weyn ay ka gaareen dhaqaalahooda oo kabac weyn uu ku socdo dagaalka dhanka dhaqaalaha marka laga jihaysto waxaa jira arrimo badan oo ay isku hayaan maraykanka iyo shiinuhu ayadoona loolanka loogu jiro dhanka tiknoolajiyadda iyo sidii lagu gaari lahaa meerayaasha ay kaalimaha koobaad kaga jiraan xiisadda arrinta xiisaha leh iyo dagaalka saddexaad bilowgiisa la galay waxaa maqaal ka diyaariyey qaar ka mida jariiradaha waaweyn ee caalamka gaar ahaana libobs oo laga leeyahay faransa maqaalka oo dhammaystiranna waxa uu xoogga saarayay arrimaha muhiimka ee taagan ka degitaankii robetka shiinaha ee uu ku degay meeraha Maaris 15kii bishii May ee sanadkii hore macquul miyay tahay inay matasho dhacdo la mida dhacdadii lagu magacaabi jiray Butnik taasoo ahayd dhacdada weyn ee ka dhalatay diiritaankii dayax-gacmeedkii Soofiyeedka ee hawada sare 1957 xilligaasi maraykanku wuxuu dareemay in looga hormaray wax badan ayna Soofiyeedku kaga gudbeen dhanka hawada taasi waxa ay laba jibaartay dadaalkii ka dhanka ah Ruushka waana xilligii uu bilowday dagaalkii dhanka hawada iyo xidigaha majaladu waxa ay kaloo ay tilmaantay in arrinta xiisaha la ay tahay dagaalka militari ee ka dhici kara badda koonfureed ee shiinaha Saria Daniel iyadoo tix raacaysa horumarka shiinaha ee dhanka garaadka macmalka ah iyo soo saaristiisa jiilka shanaad waxa ay ku celcelisay su'aasha ujeedooyinka shiinuhu ka leeyahay loolanka ugu jiro waqtigan inuu la wareego horumarka tiknoolajiyadda dunida waxa ay tilmaantay dhoolatuska militari kaasoo ay si wada jira 14kii bishii May u sameeyeen dalalka Maraykanka Japan Australia iyo Faransiiska xilli dhoolatusku uu ka dhacay badda bariga shiinaha waxayna gabadhan qoraagihii tilmaamaysaa in dhoolatuskaasi hadafkiisu iska caddaa sidoo kalena ujeedku ahaa in boqortooyada dhexe ee shiinaha lagu tusiyo dowladahan inay diyaar u yihiin difaaca jasiiradda Taiwan shiinuhu
waxa uu ku dooday in Taiwan ay ka tirsan tahay dalkooda balse Washington iyo reer galbeedkeedu way ka soo horjeedaan arrintaasi Maraykankuna Taiwan waxa uu arkaa goob muhiim u ah ciidankiisa badweynta Hindiya iyo duleelka sare ee Shiinaha ku beegsan karo una joogi karo Daniel waxay kaloo xustay in falanqeeyaasha bariga fog iyo militariga Maraykanku ay muddo dheer ka digayeen in Shiinuhu uu ku socdo wadadii uu ku noqon lahaa quwadda adduunka hogaamisa waana arrinta keentay in madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump uu ku dhawaaqo dagaal ganacsi oo ka dhana Shiinaha laakiin arrinta shooga ku noqotay dadweynaha Maraykanka sida qoraagu leeyahay waxa ay tamid intii uu socday bilowgii cudurkii safmarka ah ee COVID-19 markaasoo Maraykanku ay ogaadeen inaysan ka maarmin karin qalabka caafimaadka iyo dawooyinka Beijing ee Shiinaha ay soo saarto waxay xilligaasi dareemeen ilhaano iyo ceeb weyn iyo sidii xarigga loogu gowracay gacmahooda ay ku suubsadeen xariggaasi Maraykanku shirkadahooda ayuu u daabulay qaar ka mid ah dalalka dibadda iyagoo ka laha istaraatiijiyad siyaasadeed waxayna arrintaasi keentay in Shiinuhu ay ka faa'iidaystaan sababtaasina waxa ay riixday in Maraykanku dareemaan xarigga tiknoolajiyadda ee lagu ceejiyay inay gacmahooda dibadda ku geeyeen wakaaladda sirta Maraykanka ee CIA-da iyo militariga Maraykanka ayaa dareensan in dagaalka saddexaad ee adduunku uu ka qarxi doono badda koonfurta Shiinaha sababtu waxa ay ku tilmaamayaan arrimo ay ka mid yihiin gadarrada xukuumadda Beijing ku haysa Taiwan waxa ay u adeegsanayaan militari ahaan maxaa yeelay Washington ayaa lagu khasbi doonaa inay soo farageliso si uu caawiyo mid ka mid ah dimuqraadiyadda dhifka ah ee gobolka waa sida ay aaminsan yihiin Maraykanku waxa ay kaloo arrintan u arkaan inay dabcin karto culayska ka saaran baddaas oo 35% qayb ka mid ah ganacsiga adduunku maro majaladu waxay aaminsan tahay in Shiinuhu haddii loolanku sii cuslaado uu ka faa'iideysan doono dhawaanshaha saldhigyadiisa bariga oo ka dhow aaggaas iyo xarumihiisa kale ee tirada badan kuna yaala jasiiradaha ay qabsadeen ee ka tirsan baddaasi waxa ay Shiinuhu jasiiradahaasi badankooda ka dhigi doonaan kuwa xarumo militari ku yaalaan ayna ku kaydsan yihiin hub fara badan oo culus sida ay u adeegsadaan haddii uu loolanku cuslaado taas oo sare u qaadi karta inay ku guulaysan doonto gacan ku haynta baddaasi reer Yurub dhankooda Ameerika ayay la qabaan walwalkooda ku aadan awoodda sii kordhaysa ee Shiinaha majaladahan maqaalkeeda waxa ay ku soo gabagabeeyeen in Beijing ay mar sii horeysay bilowday diiwaangelinta nambarada caafimaadka iyo taxanaha aqoonsi jineedka ee DNA-ga 100 milyan oo muwaadiniinteeda ah taasina ay qorsheynayso inay diiwaanka ugu darto nus bilyan dad ah meel ka baxsan Shiinaha kuna nool 10 sano ee soo socda gudahood sidaas awgeed waxa ay isweydiinaysaa haddii dagaalkii saddexaad ee adduunku uu mar horeba bilowday isagoo aan weli raadin hal xabbo maxaa xal ah oo dunida xilligan dul yaalla